دلك بدالي أنا ورا دلك بدالي Somaliland ayaa ku guuleysatay kala furfurka ee maamulka waqooyi bari oo dhowaan la aasaasay. Maamulka Somaliland ayaa dadaalo xoogan cir iyo dhulba u galay sidii loo burburin lahaa ee waqooyi bari isla markaana mar kale loogu soo biirin lahaa ee Somaliland. Dadaalo xoogan la sameeyay kadib 12 xildhibaan oo ka tirsan ee maamulkaasi waqooyi bari ayaa u goostay dhanka iyo Somaliland ayadoo maamulkii waqooyi bari uu noqday gabi ahaanba mid shakhsiyaadka waliba dadkii ugu saameynta badnaa siyaasadda ay u goostaan Hargeysa. Mar kale waxaa qorshaha ah in maamulka waqooyi bari lagu biiriyo Hargeysa iyo Somaliland. 12 xildhibaan ee ka baxay Laascaanood ayaa gaaray Garowe ee maamulka Puntland deetana halkaas ay ka sii baxeen waxayse u sii gudbeen dhanka iyo Jigjiga ee Ethiopia halkaas ay kula kulmeen wafdi sare oo ka socday maamulka ee Somaliland gaar ahaan xisbiga wadani ee gudoomiyihiisa ayay kulan muhiim ah ay la qaateen xildhibaanada ee waqooyi bari ka tirsanaa 12 xildhibaan oo maamulka ay sheegeen inay qorsheenayaan in xasaanada laga qaado. 12 xildhibaan oo ka tirsan maamulka waqooyi bari ayaa Jigjiga kulan muhiim ah kula qaatay gudoomiyaha xisbiga wadani kaasoo looga hadlay sidii mar kale maamulkaasi loogu biirin lahaa ee Somaliland. 12 xildhibaan iyo sidoo kale wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa la isku afgartay in mar kale maamulka lagu biiriyo ee Somaliland dib ay ugu laabtaan. Waxaa kaloo la isku afgartay sidoo kalena gudoomiyaha xisbiga wadani uu sheegay in Somaliland ay diyaar ay ula tahay wax kasta dib loogu soo celin lahaa ee maamulka waqooyi bari isla markaana haddii hanti iyo sidoo kale xilal ay noqotaba ay diyaar ay la tahay ee Somaliland waa haddii maamulka waqooyi bari mar kale dib ay ugu soo biirinayaan. waxaa la isku afgartay in la burburiyo gabi ahaanba maamulka la isku yiraahdo imika waqooyi bari oo dowladda federaalka Soomaaliya ay u aqoonsatay maamul ka tirsan ee Soomaaliya. laakiin imika waxaa bilaabmay kala furfuritaanka iyo sidoo kale kala shaandheynta ay maamulka Somaliland ay ka wado gudaha ee waqooyi bari ayadoo 12 xildhibaan la sheegay inay ku qanceen fikradda inay mar kale dib ay ula midoowaan ee Somaliland. waxaa la sheegayaa in 12 xildhibaan 5 ka mid ah lagu qanciyay inay gaaraan caasimadda Hargeysa ee Somaliland halkaas oo qabanqaabada sidii lagu soo dhaweyn lahaa 5 xildhibaan oo ka tirsan ee maamulka waqooyi bari ay ka socoto. Fahiimo Qooje oo dhawaan ay u goosatay ee maamulkaasi ayaa la sheegay inay qayb ay ka tahay kala furfuritaanka iyo sidoo kale kala diridda ee maamulkaasi waqooyi bari. 5 xildhibaan ayaa qorshaha in lagu soo dhaweeyo garoonka Hargeysa halkaas oo qorshaha yahay in 5 xildhibaan laga soo dhaweeyo halka inta kalena ay dib ugu soo laaban doonaan Laascaanood isla markaana ay ka shaqeyn doonaan sidii loo wiiqi lahaa ee maamulkaasi.
shan xildhibaan ayaan ku hayaa magacyadoodii oo Hargeysa lagu soo dhaweyn doono xildhibaanadan ayaa ka mid ah ninka loo yaqaano xildhibaan Maktal Mukhtaar ama Maktal Saciid Maxamed oo qorshaha yahay in lagu soo dhaweeyo sidoo kale waxaa qayb ka Cabdisalaan Cabdullaahi Maxamed isaguna xildhibaan ka tirsan maamulka Waqooyi Bari ayaa xildhibaan Sidiiq Jaamac Muuse ayaa ka mid ah iyo sidoo kale xildhibaan Axmed Cali Maxamed iyo xildhibaan Axmed Caabi Shire waa shanta xildhibaan ee qorshaha yahay dhawaan in lagu soo dhaweeyo garoonka Hargeysa imika si ay joogaan ee Jigjiga waxaa kala furfurmay oo kala shandhaantamay waxa sidoo kale ka shaqeynaya kala furfuritaanka ay tahay waa Somaliland oo kaashanaysa xildhibaano iyo sidoo kale shakhsiyaad gaar ah ee maamulkaasi gudihiisa ku dhex jira iyo fahiimo qooje oo dhawaan ay u goosatay ee maamulkaasi ayaa dadaalo xoogan ugu jira sidii mar kale Waqooyi Bari dib loola midayn lahaa ee Somaliland dadaalo xoogan ayay ugu jirtaa ee maamulka Somaliland oo sheeganaysa inay tahay dawlad ka madax banaan ee dawladda Soomaaliya sidii xildhibaanadan iyo sidoo kale dhammaan maamulkaba mar kale dib loola midayn lahaa ee maamulkaasi iyadoo dadaalo xoogan ay ugu jiraan waayahay dhinaca kalena baarlamaanka ee maamul goboleedka Waqooyi Bari ayaa la filayaa ayaa meelmariyaan iraahday in qaraar rasmi ah oo dhigaya in maxkamad la soo taago oo xukuno lagu fuliyo dhammaan ciidamadii iyo saraakiishii maamulkii isla markaana Somaliland laga soo qabtay ee dagaalkii Goojacde qaraarka wuxuu ujeedkiisu yahay in maxaabiista la horgeeyo sharciga dambiyadii ay ka galeen ee Waqooyi Bari xukunkoodii lagu fuliyo iyadoo lagu marayo hanaan sharci ah oo waafaqsan xeerarka iyo habraacyada garsoorka iyadoo la marinayo maxkamadaha awoodda u leh go'aankan ayaa sidoo kale noqon doona mid shacabka Waqooyi Bari ay si weyn u soo dhaweynayaan isla markaana xoojinaya ka dhaqanka sharciga iyo sidoo kale in arrimaha maxaabiista lagu wajahayo nidaam garsoora dadaalo xoogan ayaa loogu jiraa in gebi ahaanba la doonayo in toogasho lagu fuliyo dhammaan ciidamadii laga soo qabtay maamulka Hargeysa lagu qabtay dagaalkii Goojacde ka dhacay markaan halkaasi oo dhimashadii iyo sidoo kale dhaawicii ugu badnaa ay sabab ay u ahaayeen waa sida ay sheegteen maamulka Waqooyi Bari inay tallaabo cad ay ka qaadi doonaan ciisad iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo aad u culus ayaa ka taagan gudaha maamulkaasi isla markaana looga cabsi qabo mar kale inuu qarxo dagaal aad u culus oo dhexmari doono maamulka Waqooyi Bari iyo sidoo kale Hargeysa ciidamadii ugu badnaa ee Somaliland ayaa galay heegankii ugu dambeeyay oo ay ku soo qaban lahaayeen maamulkaasi laascaanood isla markaana qorshe uu yahay in taliyaha ciidamada Somaliland Nimcaan Gaaxnuug hogaaminayo ciidamadii ugu badnaa ee Somaliland iyo kuwa dhawaan laga soo tababaray gudaha maamulka Israel inay si toos ah ula wareegaan laascaanood isla markaana ay gacanta ay ku dhigaan dhaqdhaqaaqyo iyo sidoo kale xiisado aad u culus ayaa ka taagan gudaha maamulkaasi isla markaana looga cabsi qabo in dib mar kale loola mideeyo Hargeysa calanka faraska leh ee dooga iyo buluga lahina waa calanka rasmiga ah ee la doonayo inuu ka babado xarumaha dawladda Waqooyi Bari dhammaantood caawa waxaynu halkan u joognaa in aynu goobjoog ka ahaano dhaqangalkii dastuurkii dawladda Waqooyi Bari Soomaaliya caawa wixii ka dambeeya xeerarka iyo shuruucda inoo yaalla waxa ugu sareeya oo ay u khuduucayaan dastuurka caawa aynu dhaqangelinay dhaqangelinta dastuurka maxay inoo ka dhigan tahay dastuurka iyo waxa ku qoran iyo wixii laga soo maray gudoomiyihii guddiga inoo faahfaahiyo ku noqon maaya hal qodob baan kaga noqonayaado guddiga kan dhismaheedii iyo diyaarintii xeerkii ay ku dhismayeen hawl weyn baa ka qabsatay baarlamankeennan uu hogaaminayay gudoomiye Jaamac Yaasiin xubnaha baarlamanku
sidii xadaaradda iyo hufnaanta lahayd ee ay u soo diyaariyeen ama u soo ansixiyeen xeerkaas iyo guddiga dhismaheeda u ansixiyeen aad baan ugu ammaanaya waan bogaadinaya qodobkaasaan kaga noqonayaa wixii aynu ka soo marray dastuurka waxaan doonayaa marka inaan dhowr kelmadood oo kooban ka idhaahdo dastuurkan caawa inoo dhaqan galay muxuu ka dhigan yahay dastuurkani wuxuu inoo nidaaminayaa oo inoo qaabaynayaa hannaanka dawlad ee isxukunkeenna iyo maamulkeenna ma ri'aasibaa ma barlamaanibaa ma federaalibaa isagaa inoo xadidaya sidoo kale dastuurkan baa kala xadaynaya awoodaha qaybaha kala duwan ee maamulka ama dawladdeennu ay ka koobnaan doonto madaxtooyadii ama xukuumaddii baarlamaankii iyo garsoorkii dastuurkan baa awoodahooda inoo kala xadidaya marka caawa waxa aynu halkan ku haynaa waxa weeyaan nuqulkii koowaad ee hawshaa inoo qaban lahaa in aynu kala xadidno qaybaha maamulkeennaas oo aynu kala saarro awoodahoodaas oo aynu qaabaysanno saynu isu maamuli lahayn wax sahlan maaha dawladnimada iyo maamulku ma aha golo ka fuul mana aha wax nin toocsi ku qabsoomi karaya dawladnimada waxaa asal u ah heshiis bulsho ay ku heshiiyeen inay sidaa iyo sidaa u noolaadaan isu maamulaan isu xukumaan dastuurkan caawa aynu dhaqan gelinnay wuxuu inoo xaqiijinayaa xorriyaadka guud iyo kuwa gaarka ahba muwaadiniinta dastuura kan iskale ee milkiilayaashiisa ah wuxuu u damaanad qaadayaa xorriyadahooda oo dhammaystiran hadday noqoto xorriyaddii hadalka hadday noqoto xorriyaddii siyaasiga ahayd hadday noqoto xorriyaddii iyo sinaantii intaba isagaa u damaanad qaadaya sidaas si la mida wuxuu farayaa waajibaad qof kasta oo dastuurkan qayb ka ah laga doonayo inuu u hoggaansamo wuxuu inoo xadidayaa ama inoo xaqiijinayaa inaynu helno xasilooni siyaasadeed iyo amni inaynu helno bacdallaahi waxaa inoo damaanad qaadaya dastuurka caawa aynu dhaqan gelinnay ee aad arkayseen halka lagu saxeexay xasiloonida siyaasadeed Soomaalidu waxay tidhahdaa haddaan af xumaan adinma xumaado haddii dadku ay si xasiloon siyaasadda iyo ismaamulka u jilayaan isku dhacyada iyo amni darrada waa soo koobmayaan xasilooni siyaasadeed buu inoo horseedayaa inoona xaqiijinayaa in qodobkaas aynu ku baraarugsanaanno oo weliba caawa iyo marxaladda aynu maanta marayno muhiimadda ay inoo leedahay in aynu kaga gudubno xasilooni siyaasadeed qof kastaa waa dareemayaa waxaynu dhaqan gelinnay dastuurkaas sidii guddoomiyuhu inoo sheegay ama ku qoran waxaa la socda lifaaqyadaa waxaa ka mid ah sida marxaladdan kala guurka ah ee xasaasiga ah aynu uga gudbayno taasoo shardi u ah in aynu helno xasilooni siyaasadeed dastuurkani waxa uu xoojinayaa midnimada waxa la yidhaahdo wuxuu xoojinayaa midnimada bulshada iyo shucuubta ku nool dawladda tan la yidhaahdo waqooyi bari laga soo bilaabo jihada u baryaysa ilaa laga gaarayo jihada u galbeedaysa dadka halkaa ku nool bulshadaas deegaankaa ku nool isagaa wuxuu u noqonayaa kii midayn lahaa isku hayn lahaa ee tafaraaruqa iyo kala tagga ka ilaalin lahaa marka dastuurkeennan wuxuu inoo damaanad qaadayaa midnimadeenna iyo iskuduubnideenna oo ah sida keliya ee aynu ku guulaysan karno kuna noqon karno ummad amni iyo nolol haysata kadib dastuurkani wuxuu damaanad qaadayaa oo xoojinayaa oo weliba qayb muhiima ka qaadanayaa ilaalinta iyo dhowridda midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed
dastuurkani wuxuu si cad u qeexayaa in midnimada Soomaaliyeed ay lama taabtaan tahay oo ay muqaddas tahay wuxuu si cad u qeexayaa in deegaanadani ay qayb ka yihiin dawladda federaalka ee Soomaaliyeed isla markaana wuxuu dambiile u aqoonsan yahay qof kasta oo ka shaqeynaya in wadankan la kala gooyo maxay tahay faa'iidada Soomaali ugu jirta in dastuurkeena lagu qoro inuu damaanad qaadayo midnimada qaranka Soomaaliyeed maxay Soomaali ka faa'iideysaa Soomaali kasta oo wadaniya oo jecel horumarka iyo baraaraha dalkiisa waxaynu maraganahay inuu jecel yahay midnimada dalkan iyo wada jirka dadka kan talaabo kasta oo xoojinaysa sidii arrinkaas lagu heli lahaa ama uu sii waari lahaa waa dan iyo faa'iido u soo korodhay bulshada Soomaaliyeed meelay joogtaba haddaba dastuura kan caaw halka aanu ku dhaqan gelin sagaar inteeda waa ku duqbaalay dastuurkani waxa weeyaan marka laga yimaado dastuurka dawladda federaalka ee Soomaaliyeed ka labaad ee xaqiijin karaya midnimada iyo wada jirka ummadda Soomaaliyeed weeyaan midnimada baahida aynu u qabno iyo gooni-goosadku dhibaatada uu leeyahay innaga Soomaali tusaale ugu filan una faahfaahin karna isla mar ahaantaana qayb ka noqon karna in Soomaali sii wada jirto marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu doonayo inuu maslaxad xaqiijiyo maslaxadda waxa qayb ka ah asbaabteedii in la helo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu xaqiijinayaa oo inoo xaqiijiyay midnimada iyo wada jirka ummadda Soomaaliyeed asbaabteediina waxa kamid ah in reer waqooyi bari ay degan yihiin bridge-kii Soomaali isku xidhayay oo ay yiraahdeen Soomaaliya la kala goyn kari maayo waa mas'uuliyad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inala maagay ina saaray layna ku eegay halka aynu joogno haddii looga ololeynayo ama laga doonayo ama laga rabo in Soomaaliya la kala gooyo cidina isku hayn kari mayso laakiin sidaas si lamida haddaan laga doonayn kala goynta haddii laga rabo oo laga doonayo kaliya midnimo iyo wada jir cid Soomaaliya kala goyn kartaa iyaduna ma jirtaa ka Soomaali waxaan u dirayaa baaqaasoo odhanaya state-kani waa state Soomaaliyeed waa state midnimo waa state ku yimi rabitaan bulsho iyo shacab waa state u taagan nabadgelyo horumar iyo Soomaalinimo walaalaha soo bu'aya waxaan leeyahay war nabadda naas la nuugale colaadda iyo dagaalka iyo dirirta horeynu isu aragnayo waxaad u soo iminka hanqal taagtaan oo aad isleedihiin xaqiijiya ma jiri karayaan sidaa daraaddeed waxaan Soomaali iyo caalamkaba u sheegaynaa in dadka deegaanka kan iyo state-kan ay u taagan yihiin nabadgelyo Soomaalinimo derisnimo iyo horumar ka hirgalo ka taabagala dhammaan geeyga Soomaaliyeed ugu dambeyntii dastuurkan ama heshiiskan bulsho ee caawa aynu dhaqan gelinay isaga ina kala hagaya isagaynu u noqonaynaa isagaynu oranaynaa maxaa halka kan laga gudbi karaya dastuurkani kama dhigna sharciga u sareeya ee aynu ku kala baxayno sharciga u sareeya ee aynu ku kala baxayno in hagayay waa kitaabka quraanka ah ee munazzalka ah ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu soo dejiyay nolosheena iyo ismaamulkeena iyo xadaaradeenuna isagay ka iqtibaasaysaa oo ay noqonaysaa
dastuurkeena kan wixii ku qoran ee ka hor imaanaya shareecadana waa la tuuraya waa mulqaad wax ka soo qaad ma leh ugu dambayn waxaan bogaadinayaa dhammaan xubnihii 22 ahaa ay ka koobnaayeen guddigii dastuurka shaqadii wanaagsanaad ay qabteen waxaan bogaadinayaa qaybihii kala duwanaa ee ka qayb qaatay diyaarintaas waxaan bogaadinayaa bulshadii reer waqooyi bari ee ra'yigooda iyo rabitaankooda iyo taladooda ku biiriyay intii la diyaarinayay nuqulkan caawa aynu ansixinay waxaan leeyahay reer waqooyi bari caawa laga bilaabo calanka jamhuuriyaddu waa lama taabtaan calanka faraska leh ee doogga iyo buluugga lahina waa calanka rasmiga ah ee la doonayo inuu ka babado xarumaha dawladda waqooyi bari dhammaantood magaca aynu ku shaqaynano ee lagu hawlgelayaana waxa weeyaan magaca dawladda waqooyi bari carabkeennu ha karo indhaheennu ha jeclaadaan calanka magacana aynu ku celcelinno waa la qabsanaynaa SSC Khaatuma wax dheer bay ahayd SSC Khaatuma magac dheer buu ahaa laakiin mumaarasadii iyo ku celcelintii kadib waa la qabsanaa wax kooban oo macaan buu noqday dawladda waqooyi bari markaynu muddo ku celcelinno wax kooban oo macaan bay noqonaysaa waa la qabsanaynaa haddii Ilaahay yiraahdo calankii farasle aad ogeydeen faraskiina waa muuqanayaa buluugii iyo xidigtiina waa muuqanaysaa doogga walaalaheen inoo keeneen baa lagu kordhiyey ha la soo dhaweeyo waad mahadsantihiin